قبيلة إلى آدي وحرب إنا كنتصو أذيك أحمد هان قف قبيلة لا آدي حتى إنا ضمين إنا كنتصو ربا أذيك شخصية داد أنا هدي أعرف ديو أنا هالمر قبيل أفكي سوق قادين إنا قف قبيلة لا آدي ضمين إنا كنتصو يدقيسو أقل كسر الصوماليا أقل كوز الصوماليا أو تقيب سيجا قلوا والبقفة كمتلو أنا هاد عروش وكورف ديو حلبانا يقوم متلو أو صومالي أن إيه ولا تقانو وأنا دد إيحيغا يا أنا أذيرك إيه دد إيحيغو وات أذي أحمد ده حلبان أذيك كمتلو ودولة الصومالي أذيك كمتل ملاذة ورعاينا ويصير يا شيخ لانقادها برجدير أو سيداس إيه سيداس أي لا هاي وحارب تعمل كل الضوض أو قبيل كل هذا كست أو قبيلك كو عرراي بل مركور إنه برتقف نمديس إني كلا قال سنتا قبيلك أنا عد عن كذا شيء إيه قبيلك أنا واحد شقيست معها إله إيه دوري لكن أنا قف نمدي ذا وناكسن ثيري أديك أضو عيت مايا أو له قبيليستا أهي أدو حافلة إلا وأمانة أو لو صعبيو أنا كل ور قبيل شقو كمله أدو حاربتا إلي أفلقادي أدي أفلقادي يقول صور مريسيد مركا وحان كلا نهي run xanuun oo dhar wada too socoto iyo been macaan oo lahuga la toosinaaya tahay war aniga qofka reality iyo waxa ani aan ka hadlay igu nacay kaliyo inacina xitaa firkiisi farciisa inacaan waxa ku sheegay ma fahantaad aniga cawsida wax kasta iga la qaalisan do you understand isoo dhig waa ku soo dhigay ani wax qabiilka ma aana hadlin ilaa hadda adoona qabiil carab dhabin saan kula hadlo oo hadal hadad nin hadal yaqaan tahay soo dhigtay waa tahay horta waxaad tiri wuxuu yiri ninkii jiray alla maxaa dhaq nabiga baratay mar allaale iyo marka aad rabto nin dhalinyaro inaad dhaliisho ama aad waxa weeye gabaad u noqoto inaad dhaleecaysaan ayuub boosna aad ammaanaysa waxa weeye maalin buu nabiga sidan yiri maalin buu waxa weeye aflagaadooday أنا عليه الصلاة والسلام حوي كل أنا نكاد يرتاح ما أرجع ماله وقفي لكن لعل حتى هدو كذا عي سجى إلهي بك حسابته حوي لكن نقدر نرى سوشيال ميديا كهلا أرمى سياسة دي غير كفلان غيوية عبد القادر بوسنا كذلك سودا كلوية أنا الله منا درتو منا سكايسي ستو تعرف تجدا قبيلة ده وأنا حويت أتكو عدينيسو أما أي دادكو كو أركيان إنا تاي قبيليستي منا أستراشيان بد كل شيء منا حوي القبيلة هانو لويستو قضب كسنو قد بيا قضب كلاوحي هاي حتى أناغا فيري أناغا عدان كان الشيك شيغا أناغا إذنكو أيا idinkoo qabiil reer hebel intaad annaga leedahay qabiilaystaa tahay intaad adeegsanayso ereyga annaga qabiilaystaa tahay waayo idinkuna idinkaa tihiin annaguna annagaanu nahay marka waxaan u wada hadlaynaa si jamaca ase qabiil baynu wada hadlaynaa waxaan filayaa soomaaliga waxa weeye hadalka waa margiyo waxaad leedahay wax sax oo qabiil ka fogow waxaan ka bilaabaysaa hadalka annaga haddaba waxaad tiri annaga ingiriiskaana sheega annaga reer hebel baana sheega annaga caddaan baana sheega been baa ilaah u sheegta annaga caddaan kuna sheegaan annaga ingiriis la dagaalanay daraawiish annaga keenadiid naga dhashay ilaan annagaa tiri annaga iyagaa sax waayo annagadiinna wax caddayn uma haysid waa bila proof marka annaga waa leedahay annaga wax leeyahay annaga markaan ku leeyahay qabiilaystaa tahay laakiin waxaa tahay qabiilaystee waxa weeye si dadban wax u sheegay kanuu qabiilaystee qabiilkiisa aan qarsan qadiyadiisa qarsan qofnimadiisa qarsan qof ahaanna kula hadli karaa qabiil ahaanna kula hadli karaa waana anyway dadku waxa weeye waa indha ku garaadle wayna ku dhageystaan wayna ku daawadaan waxa adigu tahay niyo waa la yaqaan inaad aaminto u bareerto aad ka leexleexan waxa weeye social media iyo taariikhda Soomaaliyeedba
qabiilku wax soo jiray weeye lagu kaftamaa gabayaal isugu tirin jiray waxa weeye waa la isku guursan jiray dadku iyagoo Soomaaliyada iyo haddana odood kale la kala yahay waxa weeye la isugu taariikh sheegan jiray la isugu laandheerin jiray la isku dagaali jiray wax soo jiray weeye wax inagu aynu maanta bilaabana maaha waxa fiican inaad adigu qabiilkaaga aaminto haafna sheegan haafna aan iska dhigin inaad tahay niman qabiilaysta ahayn taasaan uga gudbayaa anyway marka adigu waxa tahayna waa lagu yaqaan annagu waa la yaqaan qabiilaystayaal baynu labadeenu marnay arisho taas ka leexleexanin laba qabiilayste laakiin runta u kala dhoweynu nahay okay hadalka ka baxaya adigu abaad waa ku jirtay niinka ku gaaray Ahmed dhageyso hadda kama bixin hay wado marka ka baxay abaad waa ku jirtay moogti marka arush annagow waxa weeye qabiilku social media in codad la isugu qaado oo lagu kala seexdo mubadaranaya la iskaga kaftama wala iskaga baashaalaa qabiilkaaga haddaad sheegato oo ku kaftantana waxa kaaga halaabi maayaan iniyo caadi ah u bareeq waa kaaga soo baxay halka horta annaga intaan kaa keentay lacala unuka haddaa ku dhihi lahaa say dareemi lahayd kuma fahmin ay tiri ma fahmi kartid bo mar hadda unuka annaga hadii mar si bareero dhe hadalka dhageysa adiga annaga iyo unuka haddaa mar maqashid ina isku dardarsantidaa la raba adi dhan oo xisaabaadkii wixii ahayay siday kaa kala qaldamaan Axmedow marka aniga ku leeyahay adi qabiil ma kala hadlaay ana iga xumaanin yaa ma rabin inaad tan ku dhaho marka aniga ku leeyahay ana adi qabiil ما بيسيتن جواب مويسيد ومنت هذا إنا أقول لها عن ربو جواب ما بقول ليسيد بو واحد جواب بقول لنا أقول شيء واحد جواب بقول لنا أقول شيء Soomaalida hadda qabiila adig ila aadi maatanan qabiila ila aadi waxa raba inaan ku tuso adiga Axmed ahaan qof qabiil la aadi xitaa inaad dhameyn inaan ku tuso raba adiga shakhsiyadaad ana hadii or fadhiyo anoona hal mar qabiil afkeyga soo qaadeenin inaa qof qabiil la aadi dhameyn aan ku tusayo dhageyso aqalka sare Soomaaliya ee aqalka hoose Soomaaliya awood qaybsiga qolo walba qof ku matalo aniga hadda caruusha ku hor fadhiyo xildhibaana igu matalo oo Soomaali dhan ay wada taqaano oo ani dad ii xigaya ani adeerkii ee dad ii xigo what adi Axmed xildhibaan adiga ku matalo oo dawladda Soomaaliya adiga kugu matalo ma leedahay haddaan leedahay xildhibaan hebel ay dhahay war ina ani aqaana ama ee dadka yaqaaniina arkeenaaye bal xildhibaan ma leedahay inaan qabiil inaan kala dood inaan dhameyn ku tusaayo su'aasha ma ka baxday xildhibaan hebel inay dhahdo bisa ka raba wallahi sharaxaada ku dartay su'aal ay weydiisay oo ku sharax illa bari markaa sharax xildhibaan sheego ha aniga hadalayga eeg ha kaliya iga fiiri ha waan ku dhahay waliba definition ma ku raacinaya definition ma ku raacinaya ma ka baxday illa bari sharax illa bari daarat wax sharax ku dhageysaay caadi soo furiso marka amaya ani laga wax ka maqlaa mugtaada hadal maxaa ma u jeesanaysaa maya xildhibaan inaan leedahay xildhibaanka leedahay sheego ani aqalka hoosena waa lagu matalaa markaan ahay jifidaahay warsageli maaha cumarna maaha maxamed cumarna maaha garaadis maaha garaa cabdille maaha waa matitama reer garaad maaha jifida anigu ahay garaa cabdille waxaa igu matala faysal waxa weeye wahaabe oo xildhibaan aqalka hoose waa aqalka hoose aqalka sarena Seenab Ismaaciil Timbiye labadaba hadda Google garay raadi Seenab Ismaaciil Timbiye ee Faysal Wahaabe labaduba waa jifideeda hoose raaska adeer saddexaad Faysal Wahaabe marka laga tago xildhibaanada reerkayga iyo de qabiil guud yaa marka xildhibaanada Soomaaliyeed waa leeyahay waliba kuwa ugu tugtug taroon baan leeyahay xitaa golaha wasiirada Soomaaliya adigu horta yaa ku matala ma habar gidir baa ku duushaa jifidaada hoose wasiir ma leedahay habar gidir cayr wasiir ma leedahay hoose ani hiidkii ku gaarin hiidka iyo ku gaarin waa soo soconayna fiiri aniga warniyo Axmed u kaadi hadda su'aal ay weydiisay su'aal ku weydiinaya horta hal mar u kaadi horta way iga bax galgalan hal mar u kaadi Axmed hal mar u kaadi
ما أكاد مايو سؤال أي ويديسي سؤال شيء قبل حرت اوكي هل مر اوكادي أنا سؤال وتهدي ايوه اوكادي سؤال هل مر اوكادي احمد وهذا شيء لا فيري وريا فيري أروشو أنا عرمني موت يانا اي هذا دولي وايد سؤال أي ويديسي سؤال كويديني إيجا جواب إلا أنا هو كوي جوابني ما حاورت صدق ترى أساق قص الشاء اي هذا الوايد ما waxa ku qosla وي أنا حلبانada إذا أقل كسره حيقوم بالتشاء سينو اسماعيل تيمبي سوق أدري سوق سينو حلبان سينو اسماعيل تيمبي سوق مركز سوق فيري بوق يقال الإسبوع شيء بقول يا فيري أقل كوسنا وحيقوم بالتلا فيصل وهذا سوق مركز وهذا يركز صدق حادوي لبضع مركز لقيته قولها وسيرة الصومالية magaca labaad igu celi Faisal ورشان شيربان كوش شيء قرنيو أنا إسبوع شيء كنا قد دايو ماشي أوصل عنا أوقتها ay dib mala Faisal يا كم مثلا عليا dib mala أنت تسقط تنس Faisal Wahabi okay فيصل وهابي اوكي فيصل وهابي هو سينا سعيد تبي واقع كسر الكوس خلاص هو صنع صدح عيون كانت ترسلنا waxaan ka rabaa marka golaha wasiirada Soomaaliya tan xilwaanada adiguna inay sheegto xilwaanka kumitela aqal sare aqal hoose jidada hoose kor iyo meel sare isla aadmin waxaan kaloo ku raacinayaa golaha wasiirada Soomaaliya 4.5 baa lagu qaybsadaa reer walba reerka xilka haya madaxweynaha ama xilka ra'iisul wasaaraha marka laga tago daarood iyo dir iyo hawiye shan bay qaataan su'aalahan abdul bahante iyo warsangeli iyo majeerteen iyo ogaadeen ra'iisul wasaaraha marka laga tago iyo leelkase ee mareexaan shan wasiir weey aniga wasiirkaygu marka waa adeerkay wasiirka warsangeli matala waa adeerkay maxamed jaamac ilgajiir baa dhaa waa general ilgajiir wasiirka dekedaha iyo khayraadka badda Soomaaliya adiga yaa ku matala fiir ma leedahay xildhibaan sama leedahay aqal hoose aqal sare bal noo sheeg anigu intii waa ku cadiyay intuba waa faamilkayga waa ka baxda ma waa ka baxay horta saddex magac ilaahay waxa ku mara magacyada hadda aa sheegta caawa koor inaana maqlin haddaad maqal iyo haddaa maqasho waxba igama gelin su-aasha ka jawaab hadalka dhegeysay waaye hadalka dhegeysay caawa koor inaan maqlin raggan adi hadda aa ii tirinoosid iyo aaladan aniga adi hadda aa wada isticmaaleyno aaladan tiktok waa ka caansan aalada tiktok waa ka caansanbo waa dadan weligee maqlin hadda fiiri kan qof walba hadii la tuso qalin waayu leeyahay kanadi qowla jaakad waay ani ada hadda maxaa ka wada hadhoona tiktok ka wada dadka weligood ma maqlin ba ani ma dad ani aana maqlina ii tirisee ma dad la yaqaana ani dad aana weligood la maqlin inaa kula soo barbar dhigi rabtaa inuu laangaabi wax ku garanaysaa car su-aashii ha ka jawaabo bal dadkiisa ha sheegto aniga Soomaaliya oo dhan baa i daawanayso arushow qosol gariirka intaa iska dayso anigu ku ogay halka habargiri kaga taale anigu wax weeye galaa Cabdalla meeshan kaga aana waa la yaqaanaaye dhageyso inta qosol gariirka iska dayso ilka jiir oo ahaa wasiirkii hore cadaaladda Soomaaliya dawladda Xasan Sheekh haddana wasiirka waxa weeye dekedaha iyo khayraadka badda ahaa wasiirkii hore waxa weeye wasiirkii arrimaha gudaha ee Puntland dawladda Siyaad Barre ahaa jananada ugu saameynta badnaa Soomaaliya waxa ay leedahay ma aqaani waxa weeye kiiska waa iyo indhagirix weeyaane war aniga kuwayga Soomaalo dhan baa taqaana maragna waa leynoo yahay dadna waa ina daawanayaane waxaad i weydiisay xildhibaan ma leedahay saddex baan kuu sheegay waxaan kuu sheegay aqalka hoose waa adeerkay waxaan kuu sheegay aqalka sare waa eedaday waxaan kuu sheegay wasiirkayga dawladda federaalka golaha wasiirada igu matala waa adeerkay war adigu bal noo sheeg adaa dawlad nala aaday bal wax sheego ma hadal xun baa haddaadan waxba hayna waa iskiiska waali kartaa meelo kale hirdii kartaa qosol gariirkaaga caanka ah ku ahayd baa qosli kartaa nima waxba hayni de wax weeye waxa ma sheegan karo muugti kula yaabeen oo ku xil qaranayna jawaabtaada dhan waxa ku soo koobaa jawaabtaada dhan waxa ku soo koob aaladan hadda anaga aa isticmaalayno jiilka dambe ee soo socdo markay arkaan waxaana is dhadhaabsanayno war wasiirkaaga sheeg aalad Chinese baa leh hadalka dhageysay
war xildhibaankaaga sheeg war wasiirkaaga sheeg aaladan indha yar baale su'aasha abaar maxaa aaladan ka doonaysaa aaladan golo wasiir maaha laangaab xayro habar gidir ku qadaya baad habar gidir baa ku gabasaa radayga caawa la qabtay والله أضيق بطبق قلق أرماها سياسة محاق لي إنه لف يرياي إنه لف يرياي نقرأ عبد الله وسياسة كلاه ملك يا نقرأ عبد الله ورسنجل باركي ساعة وسياسة كلاه بطبق قلق أفنى وريبق ورعايرة ويصير كاي شيء كده وحاسو يا هدايا وحاكو إيري مركا لايف كبلاويني أو حانكو داي aniga adiga cidda aad tahay kuma aqaani laakiin adiga ani adaa i sheegi doono haddeertaan anaa waxay leedahay laangaab habar gidir oo sidaas iyo sidaas ay leedahay waxaa rabtaa marka kula doodo oo qabiil kula aado qabiilka soo adigu ilama aadino ma oran xildhibaankaaga federaalka ii sheeg inaan isku sheeg u baahanahay eeg artobagiisu ha dhaafo aniga inaad sheego uma baahni iyo aniga تاون كسو قدمني هذا بيشيك شيء دمية تاون كسو قدمني سؤال باميشة تمي حلبان كاغا فدرالك مترات سومالي سومالي متيد مين الموادين هين موادين سوماليين متيد ها موادين باتاي مترات بالله قولها فدرالك الصومالية قولها برلمانك فدرالك الصومالية مترات با كل هذا لبا أقل بين لنا أنا مترات ديدو أما نينك الديان كيغا الديان دورشاديدو waa Faysal Wahaabi aan reegrada maxana la yaa adeerkay saddexaad weey matalaadeedu waa Seenab Ismaaciil Timbiye wasiirkayga golaha wasiirada Soomaaliya ugu matala daaroodku shan bay leeyihiin haweena shan waxa weeye dirna shan golaha wasiirada Soomaaliya Maxamed Jaamac Ilkajiir bay ugu matala muwaadin Soomaaliyeed baan ahay deegaan doorashada dalle waxa weeye dadkaas ay matala adiga matalaadaada noo sheeg aysan ahayn شهادة الصومالية هذا سكسو علي الصومالية دبان شيئا الصومالية دتك بنت فيف كابات مركز إلا أن أنا لا هذا سؤال الموت سؤال سياسة الصومال سؤال شو هذا لك كبح حد هذا اسكار لا بقى هذا لك كبح هذا ما طبقة هدافن أنا أسقر أنت ما أقعني واحد أديك كنتي هكتي وكسور علني أنا هذا كليه وكسور علني سؤال شيء جواب حلوانكاga ii sheeg halka kaliya abaad hebel idhe hadalka ka baxad waaye waa ka baxay horta waxa hada meel kale aad soo galaya hadda soo gasho ku dhageysana hadan marka dhaad ka baxday hadan hal eray ku dhaha bis waa ku daara hoos leeka daara bis xilwaankaaga sheeg arushu ka bax hadalka waxa adiga ay sheegaysid horta qof yaqaano ama qof waxa adiga ay ka hadlaysid ee garaadkiisa tahay wax loo sheegaa cunuga 5 sano jiro waxbarashada galaaska tobnaad iyo 11aad cashirkeeda lama siiyo dadka adiga ay sheegta dad weligeed maqlamaba ahane maxaan aniga wardadkeen iska daayo xildhibaankaaga sheeg dad aqaanaba aad ii sheegine okay waayahay waxa fiirisaa liiska xildhibaanada federaalka Soomaaliya